kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey madaxweyne xasan sheekh oo ku wajahan mar kale magaalada Kismaayo xilli soo dhaweyntiisa durbal laga dareemayo gudaha magaalada Kismaayo qorshaha xiga ee halkaasi uu la tagayo ayaan idiin soo gudbin doonaa kadib cadaadis uga yimid dowladaha dariska sidoo kale madaxweyne Dani oo dib ugu laabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland halkaas oo berri uu ka furmayo kalfadhiga baarlamaanka sidoo kale halkaas waxa uu ku soo bandhigi doonaa qorshihiisa markaasi ee siyaasadeed ee dalka xilli xaalad markaasi siyaasadeed oo jahwareer ay dalka ka taagan tahay sidoo kale waxaa la filayaa in madaxweynaha Puntland dhawaan uu sameeyo isku shaandhaynta qaar ka mid ah golahiisa wasiirada sidoo kale daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa inta warbixinteena aynu ku guda jirno madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo dhaweyntiisa laga dareemayo gudaha magaalada Muqdisho kaasoo la filayo in dhawaan uu soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaana uu ka warbixiyo qorshihiisa siyaasadeed ee dalka sidoo kalena uu qayb ka noqdo ololaha Xasan Sheekh Maxamuud markaasi looga soo horjeedo in uu muddo karar si sameeyo haddaba intaan guda galin marka koowaad soo dhawow muuqaalkan like saar siina share gare si dad badan uu gaaro waa hagaag madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa caawa ku hoyanaya magaalada Garowe kadib muddo uu ku sugnaa magaalada ganacsiga ee Boosaaso madaxweynaha ayaa la filayaa in uu berri si rasmi ah u furo kalfadhiga cusub ee baarlamaanka Puntland oo diiradda lagu saari doonaa arrimo dhowr ah oo muhiim u ah maamulka wararka ka imaanaya Garowe ayaa sheegaya in khudbadda uu madaxweynuhu berri jeedin doono ay xoogga saari doonto xaaladda siyaasadeed ee Puntland xiriirka dowlad goboleedyada kale iyo wada shaqaynta dowladda federaalka sidoo kale ilo ku dhow madaxtooyada Puntland ayaa inoo xaqiijiyay in la filayo in madaxweyne Dani uu isku shaandhayn ku sameeyo golaha wasiirada si uu dib markaasi ugu habeeyo siyaasadda gudaha ee Puntland isla markaana uu u magacaabo xilal muhiim ah oo muddo banaana magacaabistan ayaa la filayaa in markaasi ay xilalkooda ku waayi doonaan shakhsiyaad markaasi miisaan culus ku dhaxle iyo magacba golaha markaasi wasiirada ee Puntland waxaana uu markaasi u sababeeyay halka qaadista xubnahan in ay ka shaqeynayaan dana aan khuseyn markaasi ee Puntland sidoo kale magaalada Garowe ayaa laga dareemayaa qabanqaabada kalfadhiga baarlamaanka ee Puntland oo la filayo in berri uu furmo kaasoo markaasi saameyn weyn ku yeelan doono jihada siyaasadeed ee Puntland bilaha ina soo aadan dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa in uu ku wajahan yahay magaalada Kismaayo halkaasoo uu rabo in uu kulamo siyaasadeed iyo wada hadal markaasi kula yeesho madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam safarkan ayaa la sheegay in uu yahay mid markaasi uu yahay tallaabo siyaasadeed oo khasab ku noqotay Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii cadaadis xoogan uga yimid dowladaha dariska gaar ahaan Kenya iyo Ethiopia kuwaasoo doonayo in la dejiyo xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeyso dowladda dhexe iyo sidoo kale Jubbaland ilo ku dhow filla Soomaaliya ayaa sheegay in kulankan Kismaayo uu noqon doono mid lagu xalliyo khilaafka siyaasadeed ee taagnaa laguna dardargeliyo isku duwidda howlaha amniga iyo doorashooyinka soo aadan madaxweynaha ayaa sidoo kale la filayaa in uu halkaasi markaa uu markaasi u tago soo afjaridda khilaafkii muddada dheer kala dhexeeyey ee Jubbaland isla markaana uu xoojiyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo sidoo kale Jubbaland madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale la filayaa in marka uu tago magaalada Kismaayo ka tanaasuli doono qodobadii la isku hayay oo ahayd in Axmed Madoobe doorashadiisii la aqoonsado lana sharciyeeyo hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa muuqato in tegitaankiisa magaalada Kismaayo ay ka dhigan tahay ka tanaasulka qodobo badan oo horey uu markaasi ugu haystay Axmed Madoobe waxaana hadda la filayaa in qorshihiisa qayb ka mid ah uu ka tago maadaama xaaladda ay adkaatay isla markaana dowladihii dariska ay si toos ah arrinta hadda ay u soo farageliyeen waxaana markaasi xusid mudan in Axmed Madoobe laftirkiisa qodobada qaar ee markaasi uu ka tanaasuli doono maadaama labada dhinac la doonayo in markaasi la soo dhaweeyo marka Xasan Sheekh uu tagayo magaalada Kismaayo waxaa sidoo kale la filayaa in ay halkaasi gaaraan xubno ka socda dowladaha Kenya iyo sidoo kale Ethiopia oo iyagu markaasi dhexdhexaadin markaasi ka dhex bilaabi doono labada dhinac iyo in markaa la soo dhaweeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in uu markaasi Axmed Madoobe uu u sheego in markaasi muddo marka 2 sano oo muddo kordhina la siiyo Axmed Madoobe balse waxaa muuqanayso intaasi aysan marnaba suurtagal noqon doonin
oo Axmed Madoobe oo haysta 5 sano oo markaasi sharciyada in uusan qaadan doonin 2 sano oo markaa muddo kordhina, taasina ay keeni karto khilaaf mar kale ee cirka isku shareera. balse haddii xasan sheekh qorshihiisa koowaad uu ka dhigo aqoonsiga Jubbaland ee Axmed Madoobe doorashadiisii in markaasi xiisadda ay halkaasi ku qaboobi doonto. inkastoo ila ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha ay sheegayaan in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ka soo horjeedo aqoonsiga doorashada Jubbaland, isla markaana uu rabo in la dhiso New Jubbaland oo weli qorshahaas isaga uu ku taagan yahay. isku soo wada duub, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa booqashadii labaad bil gudaheed ku tagaya magaalada Kismaayo, halkaasoo si diiran loogu soo dhaweeyay kal hore. inkastoo kalaabashadiisii magaalada Kismaayo ay u muuqatay mid markaasi aan wax natiijo ah aan laga gaarin kulankii halkaasi uu kula qaatay Axmed Madoobe, balse hadda waxaa la filayaa kadib kulamadii uu ku tagay Addis Ababa iyo Nairobi in xaaladdu sidii hore ay ka duwanaan doonto, isla markaana magaalada Kismaayo uu u tago in uu soo afjaro xaaladda markaasi siyaasadeed ee cakiran ee in muddo ka dhex aloosneed Jubbaland iyo sidoo kale filla Soomaaliya. waa hagaag wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhowaan ku soo laabanayo dalka kadib muddo uu ku sugnaa waddanka dibaddiisa. soo laabashada madaxweyne Farmaajo ayaa ku soo beegmaysa xilli Soomaaliya ay u diyaargaroobayaan markaasi u diyaargaroobayso doorashooyin siyaasadeed, taasoo xiisad weyn iyo loolan cusub ku soo kordhisay siyaasadda gudaha. waxaa markaasi la dareemayaa soo dhoweyn ballaaran oo ay taageerayaashiisa nabad iyo nolol ay markaasi ugu diyaargaroobayaan, iyagoo qorsheynaya in markaasi ay ku soo dhoweeyaan magaalada Muqdisho oo si aan horey loo arag markaasi loogu soo dhoweeyo gudaha caasimadda ee magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho haatan waxaa ku sugan xubno badan oo markaasi musharaxiin ah, isla markaana mucaarad ah oo markaasi raba in ay loolan adag la galaan mar kale xasan sheekh maxamuud. waxaana xubnahaasi ka mid ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo inta muddaxileedka xasan sheekh maxamuud uu talada markaasi hayay ku maqnaa waddanka dibaddiisa, gaar ahaan waddanka Qatar oo inta badan uu joogay. soo laabashadiisa ayaa loo arkaa mid dib u soo nooleyn karta saameyntii siyaasadeed ee markaasi mucaaradka, isla markaana xoojin karta isku dubiridka markaasi mucaaradka ee doonaya in waddanka uu galo isbeddel siyaasadeed oo markaasi mug weyn. si kastaba ha ahaatee xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo mucaaradka ayaa markaasi noqon doonto mid isbeddel weyn uu ku yimaado kadib ku laabashada dalka ee madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan nagu soo biir. haddaad nagu cusub tahay oo subscribe-ka noo taabo, sidoo kale muuqaalkan like garee oo sii share garee si asxaabtaada uu u gaaro.